wadooyinka sida tayaso loo dhisaa waxa ay ka qayb qaataan horumarka iyo bilicda dalka ama magaaladaasi. Haddaba dawladda hoose degmada Burco ayaa muddooyinka u dambeysay magaalada Burco ka hirgelinaysay wadooyin kala duwan. Wadooyinkan ay muddooyinka u dambeysay dawladda hoose hirgelinaysay ayaa noqon sidii la rabay, kuwaas oo muddo yar oo kooban ay tayadoodii ku luntay isla markaana aan la kala garanaynin laamiga iyo camuudda. haddaba muuqaalkani waa laamiyadii muddooyinka u dambeysay ay dawladda hoose ka hirgelinaysay magaalada Burco, taasoo ay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ay ku eedeeyeen inay sabab tahay golaha deegaanka degmada Burco, kuwaas oo sheegay inay kala shaxaadeen qarashaadkii loogu talagalay in lagu dhiso wadooyinkaasi. sidoo kalena waxa ay dadweynahani sheegeen inay ku fashilmeen golaha deegaanka degmada Burco shaqadii loo igmaday. runtii waxaad moodaa imika inay shaqadoodii ku soo ururtay wada ay kabkabaan ama ay dhabdhabaan oo iyaduna aan muddo dheer sii jiraynin. waxaan ognahay wadooyin magaalada meelaha halbowlaa ugu yaalay inay dhammaantoodba go'an yihiin ama aanay suurtagal ahayn hadda in la maro oo in badan oo gaadiidkii dadweynaha ahi aysan mari karaynin. taasi waxay si weyn u cadaynaysaa in golaha deegaanka degmada Burco ay yihiin kuwa waqti xaadirkan la joogo ku feelgaroobay isla markaana ku fashilmay shaqadii ummadda ay u hayeen. maanta bay tii ugu darnay la yimaadeen waxay noogu darantay maanta waxay yiraahdeen markii aanu ka cabanay ummadda ka wada cabatay dadku ku kacay madaxweynuhu hanjabay leeyahay waa idin kala diraya ayay isiraahdeen wax qabta wadooyinkii hore magaaladeeda yara dayacnaa bay isiraahdeen dayactira waxay noo dhagaan wax nuurad iyo jay aanu kala garan weynii waanu ka xunnahay in maartay maalin walbana lagu soo celiyo waxaan maartay ummadda waxba ahayn. waxaanu codsanaynaa in nimankan la kala diro. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku boorinayaa in doorasho degdeg loo qabto. wadada tayada oo Soomaaliland maayirku inta la joogtaa war markaan ka hadalno boorka waxba ka daran meelaha qaar waxaan moodaa inay magsiyo duldulayaanba. anigu dadka wadadan ku dhadhaway degan baan ka mid ahay. wadadan horta wada tayala maaha, dadka cashuur baa laga qaadaa, haday macaash tahay, haday mid dawlad hoose tahay, haday marka waxa weeyaan wadooyinka dadka iyo shacabka loo sameeyaa maaha wadooyin tayale. laba jeer bay wadadan intii imika ay gooday, markii ugu dambeeyay board baa lagu shubay oo dadkii imika board bay la liitaan. waxa jirta tayooyinkii wadooyinka oo aad moodo in jayun lagu sayrinayo oo aan loo samaynayn si tayaysan oo board iyo ku soo kordhinaya magaaladii iyo board iyo jajab iyo inta ay iska wacnayd in sidii hore la isaga daayo oo ah macnaheedu in tayadii la lunsaday. laakiin madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka codsanayaa khaasan golaha deegaanka Burco waa fadhiid cidna ma matalaan waxna ma qabtaan. wadooyinkan wadadana way ku fashilmeen, waa markii saddexaad ay goodo imikana board siiga saaran. shacabkina uma ogolay inay iska rusheeyaan oo la xidhay haday rusheeyaan. xilligan ayaa ku soo beegmaysa waqti la filayo in la kala diro golayaasha deegaanka. Shaakir Cabdi Axmed, SABC TV, Burco.